ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka nabad sugidda ee NISA ayaa isku soo dhiibay ciidamada dowladda Puntland. Ciidamadan ayaa sheegay in saraakiishoodu ay ku khasabtay inay ka qayb qaataan dagaalka lagu soo qaaday ciidamada dowladda Puntland ee maalmihii la soo dhaafay ka taagnaa magaalada Gaalkacyo. ciidamadan is soo dhiibay oo galabta saxaafadda la hadlay ayaa ka warbaxshay siyaabaha lagu soo gashay dagaalka magaalada Gaalkacyo. magacayga waxa la yiraahdaa Ismaan Cabdullaahi Jaamac. waxaan ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda qaranka. waxaa lagu soo tababaray aniga degmada Balamba. ka bacdi waxa la yiri isbaarooyin baad waxaad ka qaadaysaan meel adigu bandiirada iyo meelahaas. markii aan hawlgalkiisaasan ku soo baxnay isbaarooyinkii wixii la sheegayayna maanan arag. ka bacdi waxaan aragnay mabdii noo soo kaxeeyay iyo hawlgalkii aan ku soconay qarannimo iyo hawshii aan wadanay inay ka bedelan tahay hawshaas. saasaan anigu uga soo tagay. magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Ismaan Maxamuud. waxaan ahaa askari xoogga dalka Soomaaliyeed ee federaalka hay'adda nabad sugidda NISA ayaan kamid ahaa. ka bacdi adigu arrin aan loo sheegin ayaa waxaan loo soo kaxeeyay magaalada Gaalkacyo. meel ka sokaysa ayaa hawlgal yar ka soo galaysaan baan la yiri. dabadeedna waxaan la keenay Gaalkacyo gaar ahaan Baraxley ayada oo meel dagaalka dabadeedna ciidankii federaalka ee hay'adda nabad sugidda markaan aragnay dagaalkii inuu nala weerarsiinayo ee Puntland ayaan waxaan u aragnay arrintaas inaan anagu aanan gali karin oo mabdii aan askariga u ahayn oo aan federaalka u ahayn inay arrintu ka bedelan tahay ayaan u aragnay. markaas baan anagu ka soo goosanay waxaana u nimid walaalaha iyo Puntland sidaas way xaaladeedu si wanaagsan oo sharaf leh baan nala soo dhaweeyay. markii hore guud ahaan degmada Cawda ciidankii laga soo kaxeeyay 114 buu. dhanka kale wasiirka wasaaradda deegaanka dalxiiska iyo duurjoogta dowladda Puntland Cali Cabdullaahi Warsame oo shir jiraayad galabta ku qabtay madaxtooyada magaalada Gaalkacyo ayaa faahfaahin ka baxshay sida ay dowladda federaalka Soomaaliya uga qayb qaadanayso dagaalka magaalada Gaalkacyo. waxaan markhaanti cad u haynaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qayb qaadatay colaadii maalmihii u dambeeyay ka dhacay magaalada Gaalkacyo. waxaad mar dhaweyto la kulanteen xubno ka mid ah ciidanka dowladda federaalka Soomaaliyeed ee sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan NISA. xubnahaas oo isu soo dhiibay dowladda Puntland halkana ka cadeeyay hawshii loo soo diray inay ahayd inay ka qayb qaataan sidii dhibaato loogu geysan lahaa shacabka ku nool magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaanba dowladda Puntland. sidoo kale wasiir Cali Cabdullaahi Warsame ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ahaa in ciidamo la geyn doono magaalada Gaalkacyo kuwaasi oo ka qayb qaadanaya ammaanka waa sida uu sheegay. waxaan leenahay warkii uu sii daayay wasiirka arrimaha warfaafinta ee Soomaaliya Maareeye wuxuu ahaa war aad looga xumaado. wuxuu ahaa war ay ka dambeysay ujeedo qarsoon. wuxuu ku gudbinayay dhambaal ahaa in gurmadkii dowladda federaalka Soomaaliya ay had iyo goor u geysan jirtay huwanta ku soo duuli jirtay Puntland inuu si cad u sheegay inuu halkiisii ka sii socdo. waxaan aad iyo aad uga xunnahay dhacdadaas. hadalkan ka soo yeeray wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya ee ah in ciidamo la geyn doono magaalada Gaalkacyo ayaa ku soo beegmaya xilli ay ciidamada dowladda Soomaaliya ka qayb qaadanayaan dagaalka magaalada Gaalkacyo gaar ahaan ciidanka loo yaqaan NISA ee nabad sugidda Soomaaliya isla markaana ay qaar ka mid ah isu soo dhiibeen ciidamada dowladda Puntland. Shaafic Cabdulqaadir Warsame, Kalsan TV, Gaalkacyo.